بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي مانتي وحنو قادم دونا عشركي أفراد تمرتا كاسو إنكو قادم دونو تمرتا لغدا ليو بترولك جبتركي إنونا وجبتركي سجالات سيدا وروسو قادتين وإنو داغبك قسو هذا اللي وحكوه الرئي 10 iyo 10 labo iyo 10 been hore soo qaadanay mid wuxuu ka soo hadlayay kan koowaad ilaaha laga dhaliyo tamarta ama ilaaha laga helo tamarta kan labaad wuxuu kaga soo hadalay tamarta laga dhaliyo biyaha ama tamar danabeedka kan saddexaadna wuxuu kaga soo hadalay tamarta laga dhaliyo cadceeda maantay waxaynu qaadanaynaa tamarta laga dhaliyo batroolka waxyaabaha aynu ardayda darsi doono waxaa ka mid ah casharkeenna oo layna ka rabo markuu casharku dhammaado inaan naqaano kow maxaa la yidhaahdaa batrool labo xaggee laga soo saaraa batroolka ama dowladaha soo saara batroolka waa kuwama saddex waxaynu ardayda darsi doonaa ma jiraanin wax wanaagya ama dhibaatooyinka iyo wanaagyada uu leeyahay tamartaani maxay tahay ayaynu iyadana darsi doonaa qodobka ugu dambeeyay ay ardayda waxaynu ku darsi doonaa casharkeenna oo layna ka rabo inaynu garanno maxay tahay ahamiyadda uu leeyahay tamarta loo yaqaano tamarta laga helo batroolka laga dhaliyo batroolka waxaa ugu horeeya oo aynu qaadan doonaay sida halkaa uga jeedeenba waa maxaa la yidhaahdaa batrool batroolku ardayay wuxuu ka yimi kelmad Giriiga oo loo yaqaano batra macnaheeduna uu yahay dhagax batroolka markaan taariifinayno waxaan ku taariifinaynaa waa dareere u sabaysmay si dabiici ah rabbaani ilaahay abuuray wuxuu ka kooban yahay murakabka loo yaqaano hydrocarbon ama hydrogen iyo carbon falgalay ayuu ka kooban yahay batroolku waxaa laga helaa dhulka hoostiisa ayaa laga helaa arday batroolka waxaa lagu tilmaamaa tamarta batroolka laga dhaliyaay inay tahay tamarta ugu badan ee caalamka laga isticmaalo sidaynu ognahayba oo aynu aragno dalkeenna waxa weeye haddaynu example ka soo qaadno waxa ugu badan aynu isticmaalay waa batrool maxaa yeelay baabuurta korontada kulli waxaa laga dhaliyaa maxay tamarta batroolka batroolka ardayay asalkiisu xagee buu ka soo jeedaa ardayay asalka batroolku wuxuu ka soo jeedaa maadooyin furfurmay ama maadooyin noole ah kuwaasoo furfurmay kadib markii ay dhagaxyaal waaweyn ay ku dul fariisteen malaayiin sano ka hor waxayna la kulmeen kadib cadaadis iyo kuleyl daran taasoo keentay inuu noolihiisu bedelo dareere uu noqdo batrool ardayay ma jiraanin waxyaabo saacida ama shuruudo loo baahan yahay si uu batroolku u samaysmo haa waxaa ka mid ah shuruudahaas waa inay jiraanin maadooyin asalkoodu yahay noole maadooyinkaasoo ama waxyaabahaasoo ah xayawaan ama dhir beri hore baktiyey qodobka labaad waa inay jiraanin dhagaxyo rusuubi ah dhagaxyada rusuubiga ay maxay keenayaan waxay ku dul fadhiisanayaanin maadooyinkii cudwiga ahaa si ay u taxliilsamaaneen ama u furfurmaaneen qodobka saddexaad waa inuu jiraa cadaadis ama kuleyl daran si maadooyinka cudwiga ay u furfurmaaneen una noqdaaneen dareere qodobka afraad oo arday loo baahan yahay waxa weeye in ay jiraaneen markii uu furfurmo oo noolihii uu dareere isu bedelo waa inay jiraaneen ama meesha ay ku yaaleen dhagaxyo ay dhaafi karaaneen dareerahaasu si u gaaro dhulka hoostiisa waa shidaalkii markuu shidaal noqday weeye arday kama damaystii waa in meesha hoose uu batroolkii tegey
waa inay jiraan in dhagaxyaal samaa oo malaasan ama dhagaxyaal xoodan oo hayn kara oo aysan dhaafi karin maadooyinka cudwiga halkaasna ardayay waa shuruudaha loo baahan yahay si uu batroolku u samaysmo halkaa sawirkaas halkaas aad u jeedaaniin arday wuxuu caddaynayaa batroolka iyo gaaska iyo biyuhu say dhulka ugu jiraaneen korka ugu koreeya arday waxaa idinka muuqda gaaskii macnaa gaaska ugu sarreeya batroolkii ayaa ku sii xiga biyihii ayaa ugu hooseeya sababta biyaha ugu hooseysay oo dhagaxyada ku xijisiisay ama ay dhagaxyada kaliya ay ka hooseeyaaneen waxa weeye waa xagga culayska waxaa ugu fudud gaaska arday isagaa ugu kormaray waxaa ka sii culus batroolkii baa markaa ka hoos maray gaaska marka arday sawirkaasuna wuxuu sharaxayaa sida ay dhulka ugu kala jiraaneen batroolka iyo gaaska iyo biyuhu arday casharkeenna waxaynu ku xigay qodobkan markaynu ka soo baxnay meelaha laga soo saaro batroolka ee caalamka arday xaggee baa isleedihiin batroolka caalamka yaalaay waa laga soo saaraa haddaba meelaha laga soo saaro arday ee ugu badan batroolka waxa weeye mandiqada loo yaqaano bariga dhexe waa waddamada carabta ee Asia ku yaala balaas Iiraan ku dar dhulkaas ayaa wuxuu yahay dhulka ugu badan ee batroolka ugu badan caalamka laga soo saaro ilaa 34.8 baa la tilmaamaa wax soo saarka shidaalka inuu mandiqada ka yimaado waxaa ku xiga oo kaalinta labaad galaya dalweynaha Ruushka oo isaguna ah wadamada ugu badan ee soo saara batroolka waxaa ku sii xiga Jaynaha waxaa ku sii xiga bariga Yurub oo isaguna 23% soo saara bariga Yurub waa Poland iyo dhulkaas weeye waxaa ardayay ku sii xiga Mareykanka iyo Canada oo 18% soo saara arday waxaa ku sii xiga Afrika oo iyaduna kamida meelaha ugu badan ee batroolka caalamka laga soo saaro Amerika Laatiiniya baa iyadana ku xigta waa Latin America sida wadamada Venezuela iyo ayaa iyaguna waxiin kuwa ugu badan ee soo saara batroolka caalamka haddaba ma jiraan in wax ururo ah ay ku midaysan yihiin wadamada soo saara batroolka waxaa jira urur weyn oo ay ku midaysan yihiin wadamada soo saara batroolka ururkaasoo jaangooya inta la soo saarayo batrool oo suuqyada caalamka la geynayo ururka waxaa loo yaqaanaa sida magaciisa halkaa uga jeedaaneenba waa ururka OPEC oo laga soo gaabiyey Organization of Petroleum Exporting Country oo laga wado ururkay ku midaysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka caalamka ururkaasi arday haddaba goormee la asaasay waxaa la asaasay 1960kii ururkaasi xaaliyan wuxuu ka kooban yahay 12 wadan oo waxa ka baxay dalka Qatar loo yaqaano wadamadaasuna waa kuwa wadamada bariga dhexe ayaa ugu badan ama carabta Imaaraat iyo Iraq iyo Saudi iyo Kuwait iyo Iran iyo Libya iyo Jazair Nigeria Venezuela Ecuador Gabon ilaa Indonesia halka gaar marka wadamadaas ayaa waxiin wadamada ururkaasi maaragtay ku midaysan arday waxa jira wax la yiraahdo ihtiyaadiyo batrool oo ah keydka batroolka ee caalamka keydka batroolka ugu badan caalamka cidda iska leh arday ma garan ka dhaandin waxa weeye waa wadanka Mareykanka ayaa wuxuu iska leeyahay keydka ugu badan ee batrool ee caalamka waxaa ku sii xiga wadanka la yiraahdo Sacuudiga waxay labadaas waxay iska leeyihiin akbar ihtiyaadiyo batrool fi العالم waa keydka ugu balaaran ee batrool ee caalamka arday halkaas waa maabka dalka Mareykanka waxaan u galeynaa iijaabiyaadka tamarta batroolka arday batroolku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo wanaaga waxaa kamid ah batroolku waxa weeye ama tamarta batroolku waxay keentaa inay samaysmaaneen fursado shaqo waa wadamada iskala weeye labo waxa ku tiirsan
lacagta ka soo laabata batroolka dowlado badan oo caalamka ku yaala qaybtoodna waa qani sida wadamada khaliijka batroolka waxyaabaha haraadiga ah ee ka soo hara ardayda waxaa laga sameeyaa waxyaabo badan oo warshadaha gala qodobka afraad waxa weeye batroolka waxaa loo adeegsadaa koronto ayaa laga dhaliyaa warshadahana waa ay ku shaqeeyaan ama waa lagu shidaa matooradooda waa silaax istiraatiiji ah oo la adeegsado xilliga dagaalka iyo xilliga nabadgelyada batroolka waxa weeye si sahlan baa meel looga qaadi karaa meel kalena loo geyn karaa waa iijaabiyaadkiisa iyadoo lagu qaadayo anaabiib ama maaragtay doonyo ama maraakiib waaweyn oo loo yaqaano naaqilaat annift arday dhibaatooyin ma leeyahay adeegsiga tamarta loo yaqaano batrool waxaa ka mid ah batroolka dhibaatooyinka uu u geysto deegaanka wuxuu sii daayaa batroolku wuxuu saameeyaa oo saameyn ku yeeshaa deegaanka isagoo ku sii daynaya carbon marka la gubo carbonkaasuna wuxuu gelinayaa ama wuxuu kordhinayaa kulaylkii khilaafkan aynu ku noolahay ama aynu neefsanayna la yidhaahdo alkhilaaf aljawi arday qodobka labaad waxa weeye batroolku marka uu daato oo xeebaha ku daato wuxuu sababaa inay xayawaan badan oo badda ku noolaa ay dhintaanin xayawaanaat albaxriya saddex arday waxyaabaha laga ishtiqaaqo batroolka waxaa la yidhahdaa si degdeg ah uma furfurmaanin umana baaba'anin waxaana lagu tiriyaa inay yihiin waxyaaba sun ah arday qodobka afraad wuxuu noqonayaa haddii ay qarxaaniin tuubooyinka wada shidaalka ama batroolku waxay keeni karaan inuu dab dhasho kaymuhu gubtaaniin mararka qaybtoodna waxaa ku dhintaa dabkaas uu sababay batroolku ama tabarta batroolku dab arday qodobkeenna casharka ka hadlayay abdaaq min albatrool ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ahmiyada uu leeyahay batroolka arday waxaa loo adeegsadaa in maaragtay lagu istaaro ama lagu dhaqaajiyo dhammaan noocyada gaadiidka arday batroolka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay il muhima oo laga helo batrokiimiyaadka ama laga sameeyo batrokiimiyaadka saddex batroolku waxaa laga sidoo kale wuxuu galaa samaynta balaastikada iyo maadooyin fara badan qodobka afraad oo ugu dambaysa ahmiyadiisa waxaa ka mid ah ahmiyada batroolku waxa weeye ama lagu soo ururin karaa waa shay si sahlan loo kaydin karo loona qaadi karo qodobka shanaad ahmiyadiisa waxaa ka mid ah waa masdar ama il ay dowlado badani hanti badani ay ka soo gasho batroolku wuxuu ka qayb qaataa horumarinta iyo wadamada soo saara ayuu ka qayb qaataa arday intaa markaan ka soo tagno casharkeennu intaas qodobadaan soo sheegnay ayuu ku dhan yahay waxaynu ka soo hadalnay maxaa la yidhaahdaa batrool xaggee laga soo saaraa muxuu yahay iijaabiyaadka iyo salbiyaadka batroolku uu leeyahay kama damaystii ardayda casharkeena sidaa u jeedeen waxaynu ku soo gunaanadnay maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay batroolku arday ugu dambaynta casharka waxaan rabaa inaad ka shaqaysaaniin su'aalahan oo gunaanad u ah casharkeenna afartaa su'aalood ayaa la rabaa inaad ka shaqaysaaniin aad baa u mahadsantihiin sidaa casharka ula socoteen una dhegaysanayseen waa inaadna janalka saadhaanin subscribe saa ula socotaaniin casharada dambe haddii alla yidhaahdo